wakaaladda horumarinta wadooyinka RDA waxa la aasaasay bishii tobnaad ee sanadii 2012 iyadoo markii hore loo oran jiray hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland oo yara la aasaasay 2000 oo waqtigaas jidadka waaweyn ee isku xidhay magaalooyinka ay ka sii muuqdeen riiqdii dagaaladii kala dambeeyay ee dalka ka dhacay. aasaaska wakaaladani wuxuu ku salahaa wareegto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo soo saaray isla markaana wakaaladda la hoosgeeyay wasaaradda madaxtooyada. ujeedooyinkii ka dambeeyay aasaaska wakaaladani ayaa ahaa in la dayactiro jidadka burburay iyo sidoo kale in la hindiso oo la horumariyo wadooyin cusub oo baahi weyn loo qabo. hay'adan markii hore waxay ahaan jirtay waxa magaceeda loo oran jiray Road Authority, Somaliland Road Authority baa loo oran jiray. waxay ku koobnayd inta badan dayactirka wadooyinkii hore ee tarmac roadka ahaa ayay ku sameyn jirtay kabkab. marmarna waxay caawin jirtay fiila roadka wadooyinka jidcadaha oo ay ka caawin jirtay community-da dadweynaha. hadda se hay'adan waxay u digarwatay oo qorsheeda cusub yahay sida magaceedaba ka muuqato wakaalada waxa la yiraahdaa wakaaladda horumarinta wadooyinka Road Development Agency. macnaheedu waxa weeye qorshaha loo aasaasin waxa weeye in wakaaladani ay samayso wadooyin cusub oo isku xidha guud ahaan magaalooyinka dalka si dadku uga faa'iideystaan kheyraadka dalka haday beer noqon lahaayeen iyo haday xoolo noqon lahaayeen iyo hadii macna la doonanayo bas loo helo meel loo maro. duruufaha wadooyinka dalka ayaa intooda badan yihiin qaar u baahan in la dayactiro halka qaar kalena u baahan yihiin in loo sameeyo laami cusub oo isku xidha magaalooyinka. horumarka xawliga ku socda ee dalka ayaa keenay inay sameysmaan magaalooyin kale iyo saylado lagu kala iibsado badeecadaha kala duwan balse magaalooyinkaas intooda badani hore umay lahayn laamiyo casri ah oo taga. waxaynu filimkan kooban ku eegaynaa mashruucii ugu horeeyay wakaaladda horumarinta wadooyinku ay ku dhaqaaqday. mashruucan oo ah jid laami ah oo isku xidhaya magaalooyinka Kalabeed iyo Wajaale oo muhiimad weyn u leh dhaqaalaha dalka. ugu horeyn balaynu wax ka ogaano sidii lagu bilaabay gudagalka mashruucan. wasiirka wasaaradda madaxtooyada oo wasiirkayagii ayaa wuxuu ka yeeray injineeradii iyo maamulkii RDA wax markaa la ogeysiiyay ama lagu wargeliyay in wadada Kalabeed Wajaale aanu bilowno. deeto waxa markaa waxa weeyaan wixii farsamo ee loo baahan yahay injineeradii buu anagu noo diray. wixii in fact waxa weeyaan fund iyo wixiina waxa weeyaan wasiirkii iyo hay'adii RDA ayaa ku shaqale. deeto waxaan bilownay markaa inuu survey bilowno qaadno. injineer Cabdilaahi Sheekh Cabdisalaan Cali Jawhar wuxuu ka mid yahay injineeradii loo xil saaray inay sahamiyaan jidkaas isla markaana ay qiimeyn farsamo iyo mid dhaqaale ay ka sameeyaan sidii lagu fulin lahaa mashruuca jidka isku xidhaya Kalabeed iyo Wajaale. wuxuu injineerku khibrad weyn u leeyahay sameynta jidadka oo uu ku shaqayn jiray muddo 25 sanadood. waxaa si toos ah loo bilaabay mashruuca jidka Kalabeed iyo Wajaale 13 bishii saddexaad 2013. sahaminta jidka iyo qiimeyntiisa waxa injineerada kala hawlgelaya wax ka tirsan wakaaladda horumarinta wadooyinka oo shaqadoodu tahay inay tijaabiyaan carrada dhulka iyo dhagaxa iyo halka la marinayo jidka laamida ah oo ay ka qaataan carrada in kooban oo tijaabo ah dabadeed ay la tagaan leeb casriyeysan oo ay ku leeyihiin wakaaladda. waxaanu qabanay waxa weeyaan meesha wadada laga sameeyay laamida ah
ayaanu test ka soo qaadnaa testkaasi waa inay noqotaa ciiddaasi meeshaa laga samaynayaa waddadu meel adag hadday noqon weydo waa la sii qodaa kabacdi markaa la qodana waxaan la doonaa ilaa bartoo adag in la gaadho markaasaa la sameeyaa aanu ka soo qaadna wixii saambale kale waddada la dhigay inaanu soo qaadana asagana eeriyada u dhow ayaanu saambalada ciidihii buurihii meelaha u dhowaan ka soo qaadanaa waxaan loo nimaadna laabkaanu kaga shaqaynaa ciiddaasi dhoobaday leedahay compactionkay qaadanayso moisture contentka leedahay oo ah inta biyo ku jirta ciidda intaa kadib kooxda laabku waxay soo saareen natiijo qoraal oo ay u gudbiyeen injineerada jooga goobta shaqadu ka socoto waxayna u keeneen fariin ka farxisay okay marka waxa tiimkii way soo baxeen in fact natiijo fiican bay 6 kilomitir noo keeneen oo ay markaa noo sheegeen in yacni mataqaanaa every 50 mitir markay qaadeen inay tahay excellent compaction qiyaasta masaafada u dhaxaysa Kalabeer iyo Wajaale waxay dhantay 19 kilomitir iyo 400 mitir balse waxa lagu bilaabay mashruucan 5 kilomitir oo laami ah iyadoo ay duruufo badan ay ku gudaaman yihiin wakaaladda sida qalabka oo aan ku fillayn iyo dhaqaale yaraan ayaa waxay ku adkaysteen inay bilaabaan 5 kilomitir ee ugu horeeyay halka marka arkaysa waxaan ku rogaynaa ciidii formation levelka ilaa hadda shaqadu si fiican bay noogu socotaa ciidan waxay taraysaa waa ciidii base-ka ama formation levelka waxa loo yaqaano waxa uu haray ciidan marka imika tan la dheemeeyo ee la kala bixiyo ee la garaaco waxa ku xiga finalka waxa loo yaqaano oo carrada intii hadhay la sameyn doono waxa ku sii xigi doona maxay hayday waxa ku xigi doona olya brushadii waxa la yiraahdo iyo chaygii iyo daamirkii caqabado badan ayaa ku horyimay howlwadeenadii mashruuca kasoo qalab yaraanta iyo dhaqaale yaraanta waxa kaga darnaa caqabadaha dhinaca cimilada oo mararka qaar shaqadu hakad gashay runtii waxa jira waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan oo shaqaalaha ka soo gaadhay waqtigii uu mashruuca socday dhibaatooyinkaas oo ay ka mid ahaayeen cimilada marka waqtigii aanu bilownay mashruuca oo ku beegnaa waqti roobaad isla markaa cimiladii oo adkaatay oo roobkii oo da'aya oo shaqaalihii ku dul da'aya ayaa waxa ay adkaysi iyo dhabar adeeg iyo kalsooni ay ku qabeen in ay u shaqeeyaan shacabkooda isla markaasna ay dhammaystiraan wadadaas ay bilaabeen oo aanay u joojinin cimilada roobka soconaya wax kasta oo dhib oo kaga yimaada in aan guud ahaan haddii aanu nahay madaxda xafiiska iyo shaqaalihii xafiiska ee halka ka shaqeynayaba inaanu u wada dhabar adeegno cimilooyinkaas iyo dhibaatooyinka badan ee markasta shaqaalaha soo feesgareynayay ma hawl yareen jid laamiya lagu sameeyo waqti yar ama maalmo iyadoo ay jiraan duruufo badan oo ku xeeran wakaaladda balse jidkii Kalabeer iyo Wajaale waxa uu maray marxalado kala duwan sida sahaminta jidka banaynta meelaha xidhan isku hagaajinta dhulka ama in la simo meelaha kala dheer buuxinta iyo garaacista dhulka si ay laamidu u noqoto mid iska xajin karta cimilada kala duwan siba roobabka kadib intaa markii la sameeyay injineeradu waxay mar kale u yeedheen kooxda laabka si ay u hubiyaan oo ay tijaabiyaan in jidku iska xajin karo culayska baabuurta kala duwan iyo sidoo kale in lagu shubi karo daamirka waxaa sidoo kale maalintaa kormeer ku yimi wasiirka wasaaradda madaxtooyada xirsi cali xaaji xasan iyo wafdi ku wehelinayay kormeerkiisa oo uu ka mid yahay maariyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Professor Xasan Cali Cismaan si uu eego howluhu sida u socdaan maadaama ay tahay hawshan mid khusaysa wasaaraddiisa
kooxdii laabku waxay ku wargelayeen injineeradii ku howlanaa mashruuca in jidku qaabilay culayskii looga baahnaa inuu iska xijiyo waxaa sidoo kale ay u sheegeen inay ku shubi karaan daamirka ugu dambeyntii 14kii bishii shanaad ee sanadkan waxaa la shubay daamirkii oo lagu dhammaystiray 5 kilomitir oo laga soo bilaabay dhanka magaalada Kalabayd munaasabada maalinta daamirka lagu shubayay jidka ayaa waxa goobjoog ka ahaa marayaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Professor Xasan Cali Cismaan iyo meeyarka magaalada Gabiley Shucayb Maxamed Muuse iyo xubno kamid ah golaha deegaanka Gabiley halkaas ay ka jeediyeen erayo kooban oo ku saabsan siday u arkaan marxaladda uu marayo jidka Kalabayd iyo Wajaale maanta oo bisha May ay tahay 14 waa maalin runtii aad u weyn oo taariikh badan waa maalintii aan bilownay runtii ku shubidda daamirka wadada isku xidhaysa Kalabayd iyo Wajaale oo ah wada runtii aad loo sugayay muhiimna ah halbowlaha dhaqaalaha wadankana ah runtii oo aad iyo aad muhiimad weyn u leh ahna runtii hamiga iyo fikirka dawladda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxa runtii maanta sharaf weyn oo ah ilaahayna ugu mahadnaqnaa subxaanahu wa ta'aala in wadadii halbowlaha u ahayd ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland in maanta ay soo gaadho oo ilaahay nagu simo waqtiga aanu aragno annagoo ma aragtay madaxdii degmada ah iyo waxa weeye injineerkii hay'adda wadooyinka agaasimihii injineeradii xogayaha dawladda hoose xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Gabiley waxa sharaf weyn noo ah inaanu maanta taaganahay in wadadii halbowlaha u ahayd ay maanta waxa weeye wajigeedii koobaad insha Allah inoo dhamaaday hadii ilaahay raado waa guul taariikhi ah oo u soo hoyatay dhammaan shacbi weynaha reer Soomaaliland gaar ahaanna uu iska leeyahay oo ilaahay isagana waqtigiisa ku simay madaxweynaha maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo wadadaas maanta faa'iidooyin fara badan ayay u leedahay bulshada ku dhaqan Itoobiya iyo bulshada ku dhaqan Soomaaliland labadaba wadadaas 18 kiiloomitirihii waxay ka dhinnayd Addis Ababa ilaa iyo Berbera laamidii isku xidhaysay marka ay 18 kiiloomitir dhameeyo waxa isku xidhaysaa 19 kiiloomitir Berbera iyo Addis Ababa ganacsiga Itoobiya iyo Soomaaliland u dhaxeeyana si dhib yar leh ay wadada u maraya arrinkaas hawsha qabatinkeega iyo faa'iidadeeda iyo ammaanteeda iyo mahadnaqeeda waxa iska leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo maanta dawladdiisii uu dhisay ay noqotay dawladdii horumarka Soomaaliland 23 bishii 2013 ayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyadu xariga ka jiray furitaanka 5 kiiloomitir ee ugu horeeyay jidka cusub ee isku xidhaya Kalabayd iyo Wajaale halkaas lagu qabtay xaflad ku saabsan munaasabadda furitaanka jidka waxaa ka soo qayb galay xafladaas xubno wasiiraa iyo madax kala duwan iyo sidoo kale dadweynaha deegaanada Kalabayd iyo Wajaale aad waxaan ugu faraxsanahay in ballanqaadkii madaxweynuhu dhagax dhigay 5 kiiloomitir oo horeysay noo dhamaatay wadada Wajaale iyo isku xidha Kalabayd ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan ugu mahadnaqayaa inuu nagu garab qabtay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadkii ka shaqeeyay haday hay'adda wadooyinka iyo haday yihiin dadkii kale la shaqeeyay ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaan jecelahay inaan ka mahad celiyo ilaa hadda ganacsatada wax naga soo gaadheen wadada intaan wadnay wax naga soo gaadheen Jaamac Omar baa ugu horeeya oo wax naga soo gaadheen oo kaliya oo 100 xabadood oo ah nasiiyay baalka la yiraahdo daamirka waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inaan wadada sii wadno oo dhameystiro sidii madaxweynuhu ku ballan qaaday insha Allah ta'ala waxaan wadada dhameystiri doonaa intaan sanadku dhamaan sanadka cusubna iyadoo laamaya lagu tagi doonaa biidilaahi ta'ala sida qorshayagu wadada waxaan u qaybsanaynaa 5 kiiloomitir dhamaaday ee dawladdu bixisay 5 kiiloomitir oo kalena haddaanu bilaabaynaa haddii Allah wada loo ogolaado 2 kiiloomitir waxa ku deeqay meesha la yiraahdo waxa ku deeqay qolada la yiraahdo dawladda hoose 5 kiiloomitir hadda dhamaaday runtii waxay haayeen 5 kiiloomitir ee ugu dhibta badan leh wadada inta aan filayo kulay
kuwa hadhay waxaan jeclahay inay ka dhib badnaato oo kuwaas ay ka dhib yaraadaan sababtoo waxa weeye waxaanu bilownay 13kii bishii saddexaad ayaanu bilownay wadada tan maantana waxaanu joognaa 23kii bishii toddobaad 4 bilood ayaanu wadadaasi wadnay 2 bilood oo kamida waxaan haystay carqalado ama caqabado aad u adag oo annaga ka baxsan awoodayada sida roob daa oo roobku markuu daayo baabuurtii iyo annagii waan heshiin kari weynay iyaga ayaa markaanu intay geli lahayn muddaanta u dayno ay maraan roobka iyo qalab xumo waddankeenna qalabkuu ku yaryahay qalab xumana way jirtay baahi badan baa halka ka muuqatay maalinba bir baa jabaysay maalinba cagaf baa fadhiisanaysay iyadana awooddeeda way ka baxsanayd oo maanaan kari karaynin inaan la'aantood gudubno waxaa mashruuca ku baxday lacag ku dhow $9 milyan mashruucan Kalabeydh iyo Wajaale kuma eka 5 kiiloomitir oo keliya balse waa mashruuc socon doona siday ballan qaadeen madaxda wakaaladu 12 bilood oo dambe si loo dhammaystiro 14 kiiloomitir ee hadhay si uu ku hirgalo dhammaystirka jidka Kalabeydh iyo Wajaale wakaalada horumarinta wadooyinka kuma filla dhaqaalaha ay u qoondeeyeen balse waxa bannaan kaalintii dadweynaha ganacsatada haddii la iskaashado waxa la gaarayaa himilo muddo dheer la rabay oo ahayd in la isku xidho labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya gacmo wada jir bay wax ku gooyaane muwaadin ka qayb qaado dhismaha jidka Kalabeydh iyo Wajaale